بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ugu horeyn waxaan aad u salaamayaa saxaafadda madaxa bannaan oo runtii dhacdadan si wanaagsan ugu soo gudbisay dadweynaha. intaa ka bacdi kiiskan wuxuu dhacay 24 bishii labaad ayuu dilkan u dhacay. labadii bishana waxaa la helay midkii marxuumadii Ruqayya Saciid Ayaanle. waxaa laga joogaa in 2 bilood iminka. runtii kiiskanu haday tahay booliiska, haday tahay CID-da, haday tahay maxkamadda si wanaagsan ayay ilaa hadda u socotaa. maxkamadda waxay soo gudubtay waxaan u maleynayaa iminka ilaa muddo bil ah inay xagga maxkamadda arrintu ay ku jirtay. 5 dhageysi baa laga dhageystay. waa kiiskii ugu dheereynayay kiisaska marka la barbar dhigo kiisaska noocan oo kale oo dilka ah. waa kiiskii ugu dheereynayay ee maxaan ku raahdaayay aad iyo aad xil isaga saaray. kiiskan wuxuu soo gabagaboobay khamiistii buu soo gabagaboobay. gudoomiyaha maxkamadda Faysal oo runtii aan u mahadnaqayno wuxuu ku dhawaaqay khamiistii loogu dhawaaqay inuu sabtida kiiskan lagu dhawaaqay natiijada. arbacadii khamiistii baan maanay arbacadii baan maanay iyo khamiistii ay doono. sabtidina waa kii madaxweynuhu iclaamiyay in la sameeyo roob doon. marka maalintaas holiday bay noqotay in kiiska uu noqdo maxaan ku raahday uu dib u dhaco. axadii waa la yimi iyadana meesha runtii laakiin waxaan maanay xagga communicationka soo saaristii iyo xaggii ayaa maxaan ku raahday maca askartu way yimaadeen, ciidanku way yimaadeen in la soo saaro. taasuna may dhicin. shalay baan anagu kulanay garsooraha maxkamadda Faysal. Faysal wuxuu noo sheegay inuu maanta lagu dhawaaqayo kiiskii oo iyagu warqadiina ay qoreen. laakiin labadan casho waxaad la socotaan inuu jiray xisbiga kulmiye oo maxaan ku raahday madaxweynuhuna dee uu furayay ammaankiisina dee aad loo adkeynayay. shirkaas ayaa hakiyey labada maalmood. maantana iyagaa hakiyey oo maxaan ku raahday ciidamadiiba maxaan ku raahday maanta sida warkan lagu sheegay waxa iyana la soo saarayay nimankii jeelka ka soo baxsaday iyo kiiskan oo runtii kiiskan marka la soo saarayo aad baa loo ilaaliyaa. runtii maxaan ku raahday arrin xasaasiya ilaa hadda intaan anagu ka warhayno haddaanu maxaan ku raahday mas'uuliyadda aan xafiiska diyaan fadhiyo ku hadlo ama aan ku hadlo ehelada aan ku hadlo ilaa hadda wax aanu maxaan ku raahday u aragno oo aan isleenahay wax mugdiya ku jira ma jirto. aad baan ugu mahadnaqaynaa cadaaladda. insha Allah waxaan u malayn doonaa in berrito hadii la yiraahdo ilaa hadda ma hubno oo racdoolina lama siinin laakiin waxaan jecelahay inay berrito arrintaas maxaan ku raahday kiiska lagu dhawaaqo. aad baad mahadsantihiin. maadaama aad cadaaladda ka sugaysaneen go'aan rasmi ah oo nooc kasta oo uu ahaado xukunkaas maadaama dad badan loo xidhayin kiiska waxaad ka filaysaan ama ma ku qanacsaan nooc kasta oo uu ahaado go'aan ka soo baxayn hor dadkuna dee way dhageysanayeen. dhacdadana maxaan ku raahday dhacdo dadkaba ka qarsoonna ma aha oo runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa shacbiga Soomaaliland dibadda iyo gudaba si arrintan u danaynayaan. waa arrin aad iyo aad maxaan ku raahday ay dadkan kala mid nahay arrintan anagu wixii cadaaladdu ka soo saarto hadii dadku ogolaadaana waanu ogolaanaynaa. anagu dadkan kala mid nahay sababtoo ah meel walba arrintan waa looga kacay. waxaanu dadka kale nahay maanta arrintanu